wiilkani waxa uu geeriyooday 12 sano ka hor kadibna hadda ayuu soo kacaya wilibana isagoo caafimaad qaba oo iska jimicsanaya oo soo baxay wuxuu soo aaday iskuulkiisa sababta wuxuu ku dhintay iskuulka korkiisa kaasi isagoo qeylna wuxuu soo galay fasalka wuxuu ku wareegay fasalka macalinkan uu fiirnay wuxuu arkay ardaygan inuu yahay arday hore sababta dharkan waa dhar hore loo qaadan jiray kaasi uu ku dhaay bax fasalka iyo bax aad xafiiska waardiyaashan ku wacay wiilkan uu soo caray wuxuu soo aaday banaanka markaas uu arkay taariikhdiina sameeyay 2017 sababta way isbedeleen isagana markiis ugu dambeysay waxay aad 2005 dib ayuu fahmay 12 sano inuu soo xusna oo jiifay soo caray wuxuu soo baxay xaafadiisa markuu guriga imaadana wax walba isbedeleen kadib ayuu ku qeylnay magacyada familigiisa balse wuxuu arkay family kale meesha ku sawiran yihiin waxaan imaanay isla markiiba ninka guriga iska lahaa markaas wuxuu ku dhacay meesha waxa sameynaysa tuug miyaata dagaal ayuu siinaya markaas odaygu wuxuu ku dhacay waxaan ku wacay booliiska maxaa guriga ku keenay ii sheeg isagana uu leeyahay wuxuu ku dhacay kan aniga guriga hor balse wuxuu leeyahay markaan awood ninka uu kala tuuray xagga inuu ku dhacaya wiilka markuu firfiiriyo gacmihiisa wuxuu dareemay inuu awood aad far badan uu leeyahay ninka alabta inuu aruur isku dayay uu ku sii cararo balse ninka dakhray wiilka markaas uu imaanay dhakhtarka waa la dabiibay isla markiiba waxa imaanay booliiska wiilka waa labada waxa la geenay saldhiga qaatiirta wiilka dabiiban booliiska waxay weydiinayaan warbixintaas oo xilliga uu dhashay iyo magaciisa halkuu degan yahay kaas uu sheegay isaga inuu dhashay 1987 markaas waxay dhahaan 1987 dhalat waxa jirlay 39 laakiin waad keertay maxaa qaldan wiilkan wuxuu ku dhahay aniga ma aqaan waxa qaldan soo waxa la keenay saldhigi waa la wareysnay markii la firfiirin dhamaan waxa uu sheegay waa sax sidoo kale wiilkani waxa uu diiwaan gashay inuu geeriyooday 12 sano ka hor ninkan uu soo baxaya isaga wiilka uu soo baxay dhaawac markuu fiiriyay isla markiiba dhaawac waa uu ka qarsoomay xariifkan markaan wuxuu dareemayaa inuu helay awood isaga kaliya oo gaar ah sidoo kale wuxuu wataa uniform kani waa saaxiibkiisa oo uu wacay wuxuu ku dhahay 12 sano ka hor dhimatay maxaa qaldan kaasi wiilku wuxuu ku dhahay waa aniga saaxiibka waliba saaxiibka khafiif oo ninkan uu yaabay indhay taagay oo soo xaya isagoo muuday raaqaraad uu soo waday wuxuu keenay xaafadiisa wuxuu ku daldaray raashinkani kadibna uu taabanaya sababta uu isleeyahay kan mirar aan qaraad ma soo dad run ah dib uu sheegay isaga loo diiwaan geliyay geeri uu dhinta 2005 markaas waxay galaan fikriyad aad u dheer wuxuu soo xasuusanaya gacalisidiisii hore wuxuu ku dhahay qoftaasi gacalisideeda taxqiiq ku dambeeysa qoftaan markaani aad iyo aad ugu wareysanaya xitaa waalidkiisa iyo familigiisa kale ma ugu wareysanaya sida uu qoftaan ugu wareysanayo sababtoo isaga aad iyo aad u jeclaa qoftaani xitaa mar walba wuxuu ka sheekeynaa qaabka telefoonka uu shaqeysan jiray mar walba wuxuu u imaan jiray xaafadeeda si uu ayada oo kaliya u arko sibana waxa loo sheegay isaga inuu dhaawac noqdo kadib meeshaas loogu soo tagay